Asalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibayaal. Iga raali noqdo ma awoodo inaan idin sheego magacayga. Haddii aan dib ugu noqono qaybtii hore, waatii dhammaatay waqtigii ilaalada markhaatiga. Aabahayna uu isku diyaarinayay inuu ku markhaati furo dilaa weyn. Waatii dhammaatay guuridii magaalada cusub. Dhinaca kale, waatii askartu u sheegtay dadkii aan isgaranaynay inaan shil gaadhi ku dhimanay. Tan labaad, qofkas waxa uu maleynayay inaan dhimanay. Waa anigii bilaabay nolol cusub. Arrinkuna si fiican ayuu u socday, laakiin shay kasta waxa uu isbedelay maalinkan. Markii aan guriga ku soo noqonay aniga Faadi, waxaan ka naxnay waayitaanka labadii askari ee guriga ilaalinayay. Waxaa noo cadaatay in guriga la soo weeraray, waxaana ka buuxay godadkii rasaasta. Faadi ayaa igu yidhi, qof ayaa gudaha ku jira. Cod ayaa ka soo baxay xagga iyo madbaxa. Si degdeg ah ayaan u galnay. Ugu dambeyntii markii aan galnay, Faadi ayaa ku qayliyay, istaag, askar weeyaan. Hadalkii muu dhamayn, sababtoo ah waxaan helnay labadii askari ee guriga ilaalinayay oo dhintay. Waan qayliyay anigoo ooyaya, maya, suurtagal maaha. Aad ayaan u naxsanaa. Waxaa si degdeg ah u soo istaagay guriga hortiisa gaadhi madow. Faadi ayaa igu yidhi si degdeg ah ii soo raac fadlan. Waan dhimanaynaa haddii aan halkan sii joogno, laakiin ma awoodno inaan badbaadino. Iga raali noqo, isoo raac fadlan. Waan raacay anigoo ooyaya, maanan istaajin oohintii. Faadi daaqadda ayuu eegay si uu u eego gaadhigan madow ee istaagsan guriga hortiisa. Darawalku si fiican ayuu u daawanayay guriga. Faadi baaskooladii ayuu qaatay wuxuuna u socday xaggii albaabka. Si deggan ayuu ii dhahay, halkaa isku qari ilaa aan ka soo noqonayo. Isagoo isqarinaya ayuu baxay ilaa uu gaadhay gaadhigii. Baaskooladii ayuu ku qabtay wuxuuna yidhi, askar weeyaan, si degdeg ah gaadhiga uga soo bax. Qof ayaa ka soo baxay wuxuuna ahaa hogaamiyihii. Iga raali noqo, waxaan kuu maleynayay dambiilayaashii. Haya gaadhiga soo kora. Gaadhigii ayaan kornay, si degdeg ah ayaan u dhaqaaqnay. Meeshaad joogteen ayay heleen. Ma garanayaan siday ku sameeyeen, laakiin maanta aroortii ayay guriga ku soo weerareen hubab kala duwan. Ma jirin qol ay labada askari isku qariyaan. Aad ayaan u naxay. Kadib intaan neef celin anigoo yaaban ayaan nidhi, waalidkaygii, hooyaday iyo aabahay. Hawlwalin way fiican yihiin. Waxayna joogaan xarunta askarta. Adayna ku sugayaan. Si la yaab laha ayaan dhimashadii uga badbaadnay. Guriga ayaan ka soo baxnay saacad ka hor weerarka. Waxaana tagnay dukaanka. Haddii aan yar saabsaami lahayn waan dhiman lahayn dhammaanteen. Ilaahay baa mahad leh. Mudane waxaan u guurinaynaa guri cusub. Maya. Markan waxay joogayaan xarunta booliska ilaa uu xukunku dhammaanayo. Halkaa waxaan u sameynay ilaalo badan. Ma doonayo inay dhacdo wixii maanta dhacay. Xaruntii booliska ayaan soo gaarnay. Weli ma rumaysnay wixii dhacay. Waxa ii caddaatay inuu arrinku ka khatar badan yahay sidaan u maleynayo. Waxaan la kulmay waalidkayga iyagoo nool. Ilaahay baa mahad leh. Farxad darteed ayaan ooyay. Waxaa lana siiyey qol hoole si ku meel gaadha. Hooyaday way cadhaysnayd. Mayna ogoleen arrinkan, laakiin xal kale maanu haysan. Anigoo daawanaya TV-ga, waxaan maqlay war degdeg ah kanaalka wararka. Waxay ka hadlayeen qabashada hogaamiyaha budhcadda ugu weyn magaalada. Waxa uu taliyuhu sheegay inuu soo dhawaaday waqtigii maxkamaddu. Muuna sheegin maalinka iyo meesha ay ka dhacayso. Sabab la xidhiidha khatarta maxbuuska. Waan la yaabay. Waxaan rumaysanahay inuu yahay ninkii uu aabahay ku markhaati furayay maxkamadda hadda. Sawirkaana ii caddeeyay. Waxa iga soo dhex galay soo galidii hogaamiyaha. Wuxuuna naga dalbaday inaan isku imaano. Wuxuu nagu yidhi, ugu dambeyn waa la soo saaray waqtiga iyo meesha maxkamadda. Ugu dambeyn, Ilaahay baa mahad leh. Xukuumaddu waxay noqon doontaa beritoole 10-ka. Maxkamaddii hore ee magaalada. Farxad weyn ayaan dareennay. Annagoo maleynayna in masiibadan dhammaan doonto beritoole xukunka kadib. Meesha iyo waqtiga waa sir aad u weyn. Waana inaga mamnuuc inaad qof sheegtaan. Aad ayaan u caajisay. Waxaanan bilaabay inaan waqtiga iskaga rido ku ciyaarista telefoonkayga. Kadib waxaan galay qaybtii wararka. Waxaanan arkay war cusub oo naxdin leh. Wuxuuna ahaa gubitaanka guri, kaasoo ku yaala isla xaafaddii aan ku noolayn. Warkii ayaan gudaha u galay. Waaba iskagii. Waxa uu ahaa gurigaygii oo la gubay. Xanuun aad u weyn ayaan dareemay markaan arkay gurigii aan ku noolaa ciyaalnimadeydii oo dhan, kaasoo igu hor burburaya. Tani waa fariin noo caddaynaysa inay budhcaddu joojinayaan arrinkan ilaa ay noloshayna soo afjaraan. Galabtii waxaan arkay hooyaday oo ku qoslaysa shay ku qornaa telefoonkayga. Xaqiiqdii waxaan helay inay ayaamahan la xidhiidhaysay saaxiibadeed.
ayna u sheegtay shay kasta oo nagu dhacay, waxayna ku dhaarisay inay cid u sheegin. Ayaantii wixii ka dambeeyay waxay ku wada hadlayeen qoraal iyo fiidiyo. Sidaa darteed waxay caddaatay inay mar labaad la hadli rabto. Si degdeg ah ayay u kacday. Waxay bilowday inay isqariso. Si deggan ayaan u daba raacay. Waxaanan dhageystay waxay lahayd. Waxay tidhi, see tahay saaxiib? Alxamdulillaah, aad ayaan u fiicanahay. Ma waxbaa cusub? Goorma ayay waxaan dhammaan doonaan? Waqti yar sug, waxaanu way dhammaan doonaan. Waxaanu kusoo noqon doonaa magaaladeedii insha Allah. Sidee ku dhacaysaa? Si hoose ayay hooyaday ku tidhi. Waan kuu sheegayaa laakiin waa inaad cidna u sheegin. Ha iga walwalin, kaliya ii sheeg. Waxaa lanoo sheegay waqtiga iyo meesha xukunka ka dhacayo. Maxay? Ugu dambeyntii si degdeg ah iigu sheeg. Xukuumaddu waxay noqon doontaa berritooda 10-ka maxkamaddii hore ee magaalada. Waa sax. Markuu shay kasta dhammaaday soo sheeg. Haye insha Allah. Hooyaday ayaa telefoonkii xidhay, laakiin waxayna ogeyn waxa uu ahaa inay qayb ka mid ah budhcad ku joogeen guriga saaxiibadeed. Waxayna uga hanjabeen inay hooyaday weydiiso xilliga iyo meesha xukunka ka dhacayo. Ugu dambeyn, ku hadalkii telefoonku markuu dhammaaday, waxay u sheegtay waxay raadinayeen waqti dheer. Hogaamiyahoodu waxa uu ahaa mid ku faraxsan oo qoslayay, muuna kala joojin qosolkii. Kadibna amar ayuu siiyay mid ka mid ah budhcadka. Booskooladii ayuu ku jeediyay wuuna dilay. Dhiig badan ayaa ka baxay. Ma ay doonayn inay askartu ogaato inay ogyihiin waqtiga iyo goobta xukunka ka dhacayo. Habeenkaa maan seexan. Waxaan ka fikirayay waxa dhici doona berritoole. Subaxdii, aabbahay wuxuu ku labisay sawir qurxoon, wuxuuna isku diyaarinayay waxa uu ka hor oran doono maxkamadda horteeda. Aabbahay ayaan ka dalbaday inuu iska taxadaro. Ilaahay ayaan u baryay inuu waafajiyo uuna ilaaliyo. Wuxuu iga dalbaday inaan ka walwalin isaga, wuxuuna ii sheegay inay si fiican ku dhammaan doonto. Waan macasalaameynay aniga iyo hooyaday. Wuxuu raacay koox ka mid ah askarta. 3 gaadhi ayay raaceen si loo ilaaliyo. Waxaana u socdeen xaggii maxkamadda. Waxaan fadhiistay fadhigii madhnaa. Waxaanan ku horsigay TV-ga hortiisa waqtiga ay dhammaanayso iyo waqtiga uu aabbahay dhammaan doono arrinkan, kaasoo dhinaca kale u rogay noloshayda. Aabbahay waxa uu gaadhay maxkamaddii. Intuuna gaadhiga ka soo degin si degdeg ah halkaa ayay ku dhammaantay qaybta 3aad ee sheekadu. Dhacdooyin argagax leh ayaan idiin soo wadnay qaybta 4aad ee sheekada. Haddii aad rabto daawashada qaybta 4aad, like saar fiidiyoga, commentigana nagula wadaag fikirkaaga. Qaybta xigta ayaan is arki doonaa. Bye.